السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada ardayda cashirkeenii 12aad ee buugga beginnerka waxaan soo bilownay my day sida aad uga hadli lahayd maalintaada ama yacni wixii aad maalinta qabanayso ama daily routine-kaaga ama yacni qof walba wuxuu leeyahay daily routine qof shaqo taga qof iskuul taga haddaad arday tahay waxaad leedahay daily routine haddaad qof shaqeeyo tahana waxaad leedahay daily routine okay waxaan kasoo hadlaynaa daily routine-kii qofka markuu ardayga yahay oo kale yacni ayaan kasoo hadlaynaa okay on my day waa maalintayda ama maxaasaan maalintaydu qarash garay okay maalinkaaga speak about your day waxaad ka hadlaysaa maxay speak about your day ka hadal maalinimadaada ama maalinta waxa aad qabato yacni okay the words and the pictures will help you. The words and the pictures will help you. Waxaa ku caawin doona sawirada iyo ereyada ayaa ku caawin doona. Okay, ereyadan haysana waa maxay? oo kelmadan haysana maxaa kamid ah? Every morning waa maxay? subax walba. Every waa kasta, morning waa subax. Okay, subax kasta. Okay, to get up waa in lasoo kaco ama lasoo tooso. To get up waa in lasoo toosa ama waa in lasoo kaca. To wash one's hands and face. in la mayro qof gacmihiisa ama wejigiisa. Okay, waxaa noqon karayaa my hand, your face. Okay, in la mayro qof gacmihiisa iyo wejigiisa. one's hand and face. Okay, mayrida qof ama dhaqida qof gacmihiisa ama wejigiisa. To brush one's teeth. in la cadaydo. inuu qofku cadaydo. To dress waa in la labisto ama dhar la xidho. la labisto ama dhar xidhashada ayaa laga to dress ama dressing waa maxay? labisasho ama dhar xidhasho. markaad dharka xidhanaysa ama labisanaysa aad leedahay dress ama to dress. Okay, to have breakfast in la quraacdo. ta ugu dambeysana maxay? to go to school in la tago schoolkii. Okay, waxaan haysanaa every morning subax kasta. waxaan also haysanaa to get up in lasoo tooso ama hurdada laga soo kaco. to wash one's hands and face. to wash in la mayro qof gacmihiisa ama wejigiisa ama qofku inuu mayro gacmihiisa ama iyo wejigiisa. to brush one's teeth inuu qofku cadaydo. to dress in la labisto. to dress ama marya la xidho ama la labisto. to have breakfast in la quraacdo. to go to school in schoolkii la tago. Okay, maxay ahayd waxaan lahayn marka hore speak about your day. soma ka hadal maalinimadaada. Okay, the words and the pictures will help you. ereyadii waxaa ku caawin doona sawirada. Okay, marka waxaad samayn doontaa waxaynu isla begbeganaynaa sawirka iyo xarfihii qayb ka mid ah. Okay, kan muxuu eegyaa waa maxay? kani waa maxay? soo toosid soma soo toosid maxay ahayd? waa maxay? to get up in lasoo tooso soma. Okay, inantan maxay samaynaysaa? waxay maydhaysaa gacmaheeda soma. Okay, in gacmaha wejiga la maydho xaggeen ku aragna maxay ahayd? to wash one's hands and face. in la mayro gacmaha iyo wejiga soma. alright, qofkan muxuu samaynayaa? wuxuu xiranayaa sharbaado soma. okay, sharbaadada markaad xiranayso maxay noqonaysaa maxay? labisashaday ka mid tahay soma. labiskii bay ka mid tahay. waxay noqonaysaa
to dress in la labisto in la labisto. Alright, sawirkan afraadna qofku wuxuu sameynayaa maxay wuxuu cunayaa soma waana quraacay soma okay waa maxay to have breakfast in la quraacdo ama quraacdi la cuno okay waxaad sameynaysaa markaa adigoo isticmaalaya erayadan iyo sawiradan ayaad waxaad wax ka qoraysaa maalintii daily routine-kaaga okay waxaad noo sheegi doontaa xilligaad soo kacdo markaad soo kacdo waxa aad samayso okay kadib markaa shaasi u kala horeeyaan for example hore waxaan soo qaadanay cashirkii hore maxay qofkii hore aan soo qaadanay maxay qofkan wuxuu soo kacaa 8 soo kacaa gacmaha iyo wajigiisu meeraa wuu cadaydaa then dhar buu xidhaa wuu quraacdaa kan iskuulku taga soma okay adoo sidii oo kala sameynaya ayaa waxaad ka hadli doontaa maxay your daily routine ayaad ka hadli doontaa ama wixii aad maalin walba qaban lahayd ama aad qaban jirtay yani okay waxaan gudbi doonaa markaa qaybta labaadna waxaan gudbi doonaa maxay qaybta labaad waxaan gudbi doonaa in la isweydiiyo su'aalo ku saabsan daily routine-kaaga ama maxaa ahayd ku saabsan yani hadda waxaad leedahay waan soo kacaa gacmahan maydhaa wajigan maydhaa waan cadaydaa quraacdan cunaa iskuulkan tagaa ama shaqadan tagaa ama waan tukadaa xataad ku dari kartaa haddaad doonto okay alright so aynu sameyno markaa soo sameyno kadibna exercise-ka aynu soo dirno insha allah kadib waxaan gudbi doonaa insha allah cashirka 13aad ayaan ku dhigan doonaa sida su'aalo iyo diidmada loo sameeyo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh arday